waxaan hadda lagu yeerayaa wasiirka wasaaradda qorshaynta jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Ibrahim Aadan Qabo mise qabiilka Cabdi oo asiibay waqtigeedina qabtay in intaasoo haweenweynaha oo kulmiyo ku abtirsada uu madal isugu keeno aad iyo aad baan wasiirka ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa oo si kaliya laaboo soo dhaweynaya hablaha quruxda badan leh kaadiriyiinta asxaabta meelaha badan ka yimid haweenweynaha kulmiye ee sharafta leh ee sida fiican soo ajiibay xafladan iyagana aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waa la hadlay anigu laba arrimood baan isku taagay waxaan doonayaa inaan tilmaamo waayo dadka qaar malaa tashwiishkaga jira markuu xisbi guulaysanayo calaamadu iska leeyahay science buu leeyahay lagu garto guusha inuu xisbigu helayo oo malayn de in badan way ka dharagsan inuu gulmiya guulaysanayo oo guushii bannaanka u taalo maanta waqtigeedii baanay noqon laakiin Muuse Biixi Cabdi hadday 28 bishii hore inoo dhici lahayd 4 habeen ku madaxweyne noqon lahaa maanta 4 habeen ku madaxweyne waayo waqti 28 Maarch ciidan kulamay tartarteen baa loo bannaanka u taalo imikana waxaan idin sheegayaa waa koow maxaa lagu dooranayaa kulmiye xisbiga kulmiye halkan waxaynu ka xusaynaa oo aynu mar walba inaynu xusno ay tahay odaygii aabbihii ururgii dhidibka u taagan xisbiga kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud Siraaye madaxweynaheenna inaynu mar walba sheegno waa koow legasigiisa iyo taariikhdiisa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah wax fara badan inuu iibin karno oo xisbiga aynu ku iibin karno inoo hooseeyo maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah isbeddel ku yimid dhammaan habkii dimuqraadiga ah ee Soomaaliland waxqabadkiisa hadday darajatay hadday lacag kordhintay hadday iskuuladii tay haddii ma tiri karno hadday wadooyinkii tay hadday taceel gaabatay waxaynu haynaa waxaynu maanta iibin karno waa koow laba ma leeyahay xisbiga kulmiye dad u fooda oo u codeeya 3 cisho ka hor waxaa lagu dhawaaqay diiwaangelintii codbixiyayaasha malaa dad badan way xisaabtameen waxaa halkaa ka muuqato ka bidhaamaysa marka gobol kasta loo qaybiyo iyo codadka ka soo baxay waxaa halkaa laga arkayaa guushii kulmiye waayo dadku way qaybsan yihiin deegaanaduna way qaybsan yihiin faaniska kulmiye iyo codeeyayaasha kulmiyana gobollay u badan yihiin gobolka Maroodijeex iyo hadday dee gobolka Togdheer oo mucu ah labada meelood oo kulmiye uu ku yahay bayska labadaba guushii kulmiye ka muuqata maraa waaxida waxaan u malaynayaa 6 bilood bay naga xigta guushii bannaanka inoo taala maxayna looga baahan yahay ma aha calanka labada midab leh ee wanaagga farabadan soo sameeyay mid waa green midabkiisu midna waa yellow caalamku waxay dhahaan midna waa horumar midna waa barwaaqo ka been sheegi mayno waa ku guulaysanayna maxayna looga baahan ma aha inaynu sacad sula nimaadno ma aha inaynu isu jibbo waxayna looga baahan shaqayna looga baahan ma aha mid hoggaanka looga baahan mid xukuumadda looga baahan koow xukuumaddeena 6 bilood u hadhay inaynu full support lagisigeeda inaynu ilaalino dowladda la shaqayno sixir bararka la dagaalano abaarta dhinaceena qabanno aanaynu inta hadhay wanaagii hore aynu soo sameynay aanaynu ku feel garoobin inaynu hareeraha iska taagno reer kulmiyo ballanku soo saamaaha inaynu dowladdeena iska ragtaagno inta hadhay oo la shaqayno abaarta iyo sixir bararka qof walba kaalintiisa uu ka qaatay waa koow laba maxaa inoo hadhay waxaa inoo hadhay tartankii inaynu laabto ku haysanno kulmi kaarar baa la qaybinaya kaararka waraaqaa la bixiyey waraaqaha yaree la bixiyey ayaa kaarkii lagu soo qaadanaya in badan oo haysataa way jirtaa in badan oo ka maqayana way jirtaa inay reer kulmiye ka hawlgalaan intooda miyiga joogta weliba inay kaarkaas day u heli lahaayeen inaanu qof reer kulmiyi inaanu misgarayn kaarkiisa in kaarka la qaato loo dareero
weliba aan la haysana lagu codeeyo intaasu baynoo hadhay waxaan filayaa guushii bannaanka inoo taallaa waxaan isleeyahay wax wanaagsan oo horena waa qabateen maantana mujaahid muuse biix cabdi oo waxa inta ka dhiman dhammaystiri doona insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu